kulan wacan oo wanaagsan daawadayaal halkani waa kulmiyaha wararka ku soo dhawaada qodobada ugu waaweyn ee barnaamij wareedkan aad ku maqli doontaan waxa kamid ah madaxweynaha koonfur galbeed Cabdicasiis Laftagareen oo war xasaasi ah ka soo saaray dagaalkii maanta ka dhacay magaalada Baydhabo haddaba muxuu ka yiri shaqaaqadaas balaqaad uu sameeyay madaxweyne Laftagareen sidii la filayay miyuu kaga hadlay dagaalkii maanta dhacay iyo waliba dareen cajiib ah oo laga dheehan karay wajigiisa markii uu ka hadlay dagaalkii maanta Baydhabo ka dhacay ayaan eegi doonaa sidoo kale waxaan idin haynaa gudoomiye hore golaha shacabka Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan wuxuu shaaca ka qaaday cidii bilowday dagaalkii maanta Baydhabo ka dhacay isagoo ka hadlay qodobo xasaasi ah Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo soo dhaxgalay dagaalkii maanta Baydhabo ka dhacay xog xasaasi ah ayuu banaanka keenay wuxuuna carabaabay sargaalkii maanta dagaalka bilaabay sidoo kale waxa daawad doontaan Sheekh Aadan Maxamed Nuur Sheekh Aadan Madoobe wuxuu shaaca ka qaaday qorshaha cajiibka ee laga leeyahay dagaalkii Baydhabo maanta ka dhacay isaga oo banaanka keenay waliba nadaha ka qaaday sababtii ka dambeysay maanta inuu magaalada Baydhabo dagaal ka dhacay barnaamij wareedkeena guud ahaan wararkii ku saabsanaa dagaalkii maanta ka dhacay magaalada Baydhabo ayaan ku eegi doonaa marka hore intaan guda gelin waxa ka codsanaynaa in aad subscribe channel-ka saarto aad nagu soo biirto sidoo kale like saar muuqaalkan si saaxiibo badan u gaaro adigoo aad iyo aad u mahadsan waa hagaag madaxweynaha maamulka koonfur galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen wuxuu goordhow ka hadlay dagaalkii maanta ka dhacay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baydhabo waxay xarun ku meel gaar ah u tahay koonfur galbeed waana halka uu ku shaqeeyo Laftagareen madaxweyne Laftagareen si la yaab leh ayuu kaga hadlay dagaalkii maanta ka dhacay Baydhabo ma la filanaynin inuu qaabkaasi kaga hadli doono balse cajiib ay noqotay qaabkii uu dhigdhigay arinta ku saabsan dagaalkii maanta ka dhacay Baydhabo madaxweyne Laftagareen ayaa ugu horeyn waxa uu tacsi u diray dadkii ku dhintay dagaalkii Baydhabo maanta ka dhacay sidoo kale wuxuu wax laga xumaado ku tilmaamay dagaalkii maanta halkaasi ka dhacay isagoo oo sheegay in laga baaqsan karay si qoto dheer ma uusan kaga hadlin Laftagareen waxyaabaha uu salka ku hayay dagaalkii maanta dhacay cidda bilowday iyo waliba eedeynta loo jeediyay ee ku saabsan in iyagu weerarka ku qaadeen musharaxa madaxweynaha koonfur galbeed oo maanta ciidan ka amar qaatay isaga ay weerareen Laftagareen aad ayuu kaga gaabsaday wuxuuna hadalkiisa uun kaliya ku ekeeyay in ay baaritaan wadaan natiijada soo baxdana ay dadka la wadaagi doonaan wuxuu hadalkiisa baaq u diray guud ahaan shacabka koonfur galbeed isagoo ka dalbaday inay ilaashadaan nabadda ay haystaan waxa uu yiri shacabka koonfur galbeed waa dad lagu yaqaano nabadda looma baahno xilligan oo lagu jiro dagaalka dhanka al-shabaab in Baydhabo iyo magaalooyin kale ee muhiimka ee koonfur galbeed dagaal uu ka dhaco ciidamada dawladda iyo kuwa koonfur galbeed ayuu ka dalbaday inay aaga amba furinta dagaalka looga soo horjeedo al-shabaab aysan ka soo bixin oo ay joogaan wuxuu sidoo kale yiri in ciidamada maanta dagaal ka qayb qaata loo baahnaa inay xabadda u adeegsadaan oo ay iyagu ku dagaalameen dhanka al-shabaab Laftagareen waxa laga filayay in si qoto dheer uu kaga hadlo arintii maanta dhacday inuu dambiga cidi saaro amba isaga inuu qaato labadaba ma uusan sameeynin wuxuuna hadalkiisa uun kaliya ku soo gaabsaday in baaritaan la sameyn doono natiijadana ay dib ka shaacin doonaan hadalka Laftagareen markii aad si weyn u dhuuxdo aad bay dadku u suluugeen waxa ayna wajigiisa ka dheehan kareen inuu dagaalku isagu qaaday walibana uu ka gaabsanayo arinta maanta dhacday dad badan oo siyaasiyiin ayaa Laftagareen ku eedeynaya in maanta wixii ka dhacay Baydhabo in mas'uuliyadeeda isagu uu dusha u ridan doono madaxweyne Laftagareen sidoo kale hadalkiisa waxa ku jirtay in loo baahnaa maadaama muddo isbuuc kaliya ay ka harsan tahay shirkii dib u heshiisiinta koonfur galbeed in uusan wax dagaal ka dhicin Baydhabo loona baahan yahay in la ilaaliyo nabadda inta laga gaarayo shirkaas dhinaca kale gudoomiye hore ee golaha shacabka Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan oo ka hadlay arintaasi wuxuu xiisada ka taagan magaalada Baydhabo uu sheegay in uu ka danbeeyo Cabdicasiis Laftagareen Mursal waxa uu cambaariyay wixii maanta ka dhacay Baydhabo waxa uu sheegay in xalka kaliya oo lagu badbaadi karo uu yahay in madaxweyne Cabdicasiis Laftagareen uu ogolaado doorashada Mursal nasiib darro weyn ayuu ku tilmaamay in maamulka koonfur galbeed uu maanta weeraro guriga wasiirkii hore ee maaliyadda Soomaaliya Fargeeti oo hadda musharax u taagan hogaaminta koonfur galbeed
sidoo kale gudoomiye mursal oo hadda ah xildhibaan ka tirsan golaha shacabka ayaa la xasuustaa inuu ahaa saaxiib aad ugu dhow Laftagareen wuxuuna ka mid ahaa xubnihii uu kursiga soo siiyey intii ay socotay doorashadii heer federaal. shaqaaqa weyn oo salka ku haysa muddo kororsiga Laftagareen ayaa Baydhabo maanta ka dhacday kadib markii ciidan ka amar qaata madaxweyne Laftagareen ay saaka waaberigii hore weerareen guriga uu Baydhabo ka degan yahay musharax Fargeeti inkastoo ciidankiisu ay isdifaaceen. muuqaalo lagu baahiyey baraha bulshada ayaa laga soo duubay guriga la weeraray ee musharax Fargeeti wuxuuna muujinayay in burbur xoogan uu soo gaaray iyadoo la sheegay in ciidamada Laftagareen ay maanta hub culus u adeegsadeen guriga Fargeeti uu ka degan yahay Baydhabo. sidoo kale Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo ah erigii arrimaha bini'aadanimada u qaabilsan madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxa uu ka hadlay weerarkii saaka lagu qaaday guriga mid ka mid ah siyaasiyiinta mucaaradka ee Koonfur Galbeed isagoo wax laga xumaado ku tilmaamay in weli uu dagaalka ka sii socdo falkii lagu kacay 5 sano ee la soo dhaafay. erigayga oo soo xiganayay cod laga baahiyey taliyaha booliska Koonfur Galbeed oo si bareer ugu hanjabaya mid ka mid ah musharaxiinta mucaaradka ee maamulkaas ayaa sheegay in weerarka uu ku qaadi doono uuna geli doono sidii hore u dhacday guriga Cabdiraxmaan ee Muqdisho. waxa uu sii raaciyay hadalkiisu inuu cambaareynayo falkaasi guracan ee caburiska iyo awood sheegashada ah. Cabdiraxmaan wuxuu ugu baaqay madaxda sare ee dowladda federaalka in waajibkooda dastuuriga ah gutaan joojiyaan xukunka xoogga lagu doonayo iyo xabadda siyaasadda lagu xalinayo. siyaasi gurigiisa Baydhabo maanta la weeraray oo lagu magacaabo Maxamed Aade Ibraahim Fargeeti ayaa ka mid ahaa musharaxiinta mucaaradka ah ee ka soo horjeeda muddo kororsiga Laftagareen wuxuuna qudhiisa warbaahinta ka xaqiijiyey in horey ay ugu hanjabeen qaar ka mid ah saraakiisha maamulka Koonfur Galbeed. sidoo kale gudoomiyaha golaha shacabka Sheekh Aadan Maxamed Nuur Madoobe oo qoraal ka soo saaray dagaalkii maanta ka dhacay Baydhabo ayaa waxa uu sheegay in lagu dan leeyahay in lagu fashiliyo shirka dib u heshiisiinta ee uu ku baaqay. dagaalkan ayaana u dhaxeeyay ciidamada maamulka Koonfur Galbeed iyo kuwa badbaadada ee musharaxiinta madaxweynaha maamulkaasi u taagan iyada oo weerar ay sheegeen in ciidanka Koonfur Galbeed ay weerareen guriga wasiirkii hore ee maaliyadda Soomaaliya Fargeeti oo ka mid ah hadda musharaxiinta u taagan xilka Koonfur Galbeed. Sheekh Aadan Madoobe war-saxaafadeedka waxa uu ku sheegay inuu aad kaga xun yahay dhacdooyinkii gacan ka hadalka ah ee maanta Baydhabo ka dhacay oo xarun ku meel gaar u ah dowlad goboleedka Koonfur Galbeed. wuxuu tacsi u diray ehelada dadkii ku nafwaayey intii ku dhaawacantay ayuu u rajeeyay caafimaad. Sheekh Aadan Madoobe dhammaan dhinacyada ku lugta leh dagaalkii maanta ka dhacay Baydhabo ayuu ugu baaqay in si degdeg ah oo shuruud la'aan ahi loo joojiyo dhiilada colaadeed ee taagan loona abuuro jawi xasiloon iyadoo loo turayo shacabka. Sheekh Aadan Madoobe ayaa ugu dambeyn sheegay in dhammaan dhinacyada ku lugta leh qalaasaha ka socda Baydhabo lagula xisaabtami doono wixii khasaare ah ka dhasha. guud ahaan daawadayaal wanaag inta barnaamij wareedkii koobnaa waad kala socoteen kulmiyaha wararka inta dib u kulmi doono warkan kiisiga sidaas iyo nabadgelyo.